laga rabaa maanta kadib adoo ay kaarlo oo si ku dhigan yahay arag dagaal la isku adeegsanayay gantaalaha ridada dheer ee afka laga hago isla markaana ka socday baraha bulshada ee Soomaalida una dhaxeeyay ayuu Carlo iyo King CK ayaa waxa labaduba soo kala dhex galay Daahir Cabdulle Calasow walow labaduba midba midka kale uu saarbaa saartay ciyaartan oo ay tahay barbardhac ama bareejo hadba saadu taqaan muuqaalkeenan waxaan ku eegi doonaa xiisadan baraha bulshada ka taagan ee ku aadan CK iyo Ayub Carlo muuqaalka leegsar sidaad ula socoto warbixinada xiisaha badan oo aan ku baahino boggenan Facebook page ee Ducaysana Media ku mahadsanid daawade kulanti habboon daawadayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhawaada boggeena Ducaysana Media oo aan alaaba idinkugu soo gudbino warbixinada xiisaha badan oo aan isleenahay bulshada wad la wadaagi karaysaan dagaal la isku adeegsanayay gantaalaha ridada dheer ee afka laga hago isla markaana ka socday baraha bulshada ee Soomaalida una dhaxeeyay Ayub Carlo iyo King CK ayaa waxa labaduba soo kala dhex galay Daahir Cabdulle Calasow oo inta badan xaliya arrimaha ku aadan shakhsiyaadka caanka ka ah baraha bulshada walow labaduba midba midka kale uu saarbaa saartay ciyaartuna ay tahay barbardhac ama bareejo hadba saad u taqaan dhammaan Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ayaana ciyaartan u dhaxaysay CK iyo Ayub Carlo indhaha ka wada daawanayay balse Daahir Cabdulle Calasow oo habeennimadii xalay ahayd saqdii dhexe ku soo baraarugay xiisadan oo social media qaasatan Facebook, YouTube iyo TikTok cirka isku shareertay waxaana uu sheegay in CK iyo Ayub Carlo ay yihiin laba shakhsi oo walaalo ah dhanka qabiilka markii loo fiiriyana isku dhow waa sida uu sheegay loona baahan yahay in dagaalka halkaasi ay ku joojiyaan Daahir Cabdulle Calasow oo la hadlayay Ayub Carlo ayaa waxa uu sheegay inuu la soo hadlay CK haatanna uu la hadlayo isaga waxaana uu Ayub Carlo u sheegay in Ayub Carlo uu joojiyo dagaalkan uu wado caradiisana halkan uu ku ekeeyo waxaana uu sheegay Daahir Calasow inuu horay ugula soo hadlay King CK in arintan uu qaboojiyo ila daawo muuqaalka Daahir Calasow sheekada soo afjaro wixii dhacay anaga dhameysayna anaga dad baan nahay qabiil baa ilaahay naga dhigay ruuqas tagayna anaga dhameysayna wixii dhexdeena qaad ah adii waxa laga rabaa maanta kadib adoo Ayub Carlo oo si ku dhigan yahay arag saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada waxa qabsaday xiisad ka dhalatay hees ay soo wada qaadeen Lil Baliil iyo sidoo kale King CK isla mar ahaantaana heesta lagu soo dhex daray Ayub Carlo iyo sidoo kale qaar ka mid ah gabdho caanka ah baraha bulshada ee Soomaalida ay ku wada xiriirto sidaasina qoorta ay iskula galeen Ayub Carlo iyo King CK kuma sani daawashada muuqaalkan fadlan haddii ay tahay markii kuugu horeysay oo aad soo booqato boggeena Facebook page ee Ducaysana Media follow dheh oo muuqaalka like garee una share garee saaxiibadaada kuma sani daawade tan iyo kulanti dambe nabadgelyo